Bismillah. Masayrka wuxuu ka mid yahay qodobada burburiya qoysaska. Masayrka waa cudur xun oo ku dhaca ragga iyo dumarka. Inta badan wuxuu ka yimaadaa oo sabab u ah damaca ragga oo aad u fara badan oo jecel haddii ay suurtagal u noqoto dhaqdhaqaaqoodu badiyaan ama ay xaasas badan guursadaan. Iyo samirka maanta gabdhaha jooga oo aad u yar marka damaca ragga oo xadkabax ah iyo samirka dumarka oo aad u yar ayaa waxay keentay in qoysaskii masayr uu baabi'iyo. Taasaana sabab waxay u noqotay in aan ku soo daro qodobada burburiya qoysaska inuu masayrku qayb ka mid yahay. Haddaba masayrku muxuu yahay? Masayrka aniga waxaan u arkaa inuu yahay dareen waali wata oo asiibo maskaxda gabdhaha lala guursado ee aan loo sheegin. Haddii loo sheego oo gabadhii lala wadaago in guur la galayo waa hawl kale oo gadaal aan ka sharxi doono. Laakiin inta badan masayrka waalida ah ee wareerka u keena gabdhaha ee ku qasbo inay gurigaas isaga tagto ama iyadoon ka warqabin inay ninkii dhibaato badan ku hayso ay aad u dhibayso waxaa sabab u ah guurka laga qariyo dumarka ee lala guursado ee haddana aan loo sheegin. Sababaha ugu waaweyn ee masayrka keenaya wax kale ma ahan waa jacayl. Waa qofkii oo dareemay qofkii asaga wehelka u ahaa in laga qaaday ama lala wadaagay. Dareenkaas marka maskaxdii ay u sheegayso qofkii ay nolosha la wadaagtay in laga qaaday ama lala wadaagay si qaldan aysan war ka hayn yaa wuxuu keenaa in masayrka xadkiisu aad u dheeraado oo si xawliya u kaco, garashadii lumiyo, isla markaana ficilo gabadhii aysan lahayn inay la soo baxdo. Ficiladaas waxay sababaan samir yari fara badan oo raggii ayaga laftooda ku dhacday, dulqaad yari ay u samri waayaan culayska soo kordhay, iyo gabadhii oo isbedel ku dhacay ayaa wuxuu keenayaa burburka. Li'annahu waxaa yimid caado iyo hab cusub aan markii hore guriga ka jirin, iyadoo samir dara kala kulanta ninkeeda burburkaasuu keenaa. Masayrka qaarkii inuu waali keeno oo qofku maskaxdiisa lumiyo waa xaqiiq jirto oo cid kasta og tahay. Aniga waxaan aaminsanahay guurka marka laga qariyo gabadha ay maqasho odaygaagii baa aqal galay ama asagiiba uu u sheego goor uu wixiisii dhammaystay oo la yiraahdo habeen dambe buu aqal galayaa ama caawuba aqal galay. Arrintaas ma sahlana, waa musiibo aad u weyn, aad bay u xanuun badan tahay. Waa toogasho madaxa laga tooganayo qofkii, sababtoo ah adiga ayay guriga kuu joogtaa, adiga ayay ku sugaysaa. Waa aqal galay ninkaagii inay maqasho arrintaas ma sahlana. Masayrka laba nooc ayuu u kala baxaa. Gabadhu markay masayrto ay dareento in ninkeygii laga qaaday, ay u sheegto oo ay dagaalanto, ay wixii ay kari karto dagaal, afka hadal ama gacan ka hadal ay sameyso si kiiskeedaas loo ogaado loona xaliyo, baahideeda ay sheegato kabacdina la xaliyo. Iyo mid aamusnaan ka dhalata. Gabadhii baa lagu yiri ninkaagii waa guursaday, goorma bay tiri caawa baa la yiri. Gabadhii waa aamusaysaa, khalaas hadal dambe kama soo yeerayo. Aamuskaas ay isku celinayso wixii qalbigeeda ku jiray aad iyo aad buu u dhib badan yahay, aad iyo aad buu u dhaawacayaa. Maskaxdeeda buu wax gaarsiinayaa, dareenkeeda buu dhaawacayaa, dareenkeedana aad buu u bedelayaa. Maxaa dhacaya marka hadduu ninku uu u qaato gabadhu inaysan masayrin ee isku celisay masayrkii? Guriga kama baxayo, meelo kale buu guriga kaga jirayaa. Noloshii guriga isbedelaysa, qarashaadkii guriga ku baxaya isbedelaya, jiradii reerka badanaysa, cabashadii baa zaa'id noqonaysa. Maalin walba dhaqtar baa loo sii socdaa, laga soo socdaa, ayadii naf ahaanteeda jiro ka bixi mayso. Marka waxaa fiican gabdhuhu inay tufaan waxay aaminsan yihiin. Hal mar oo gabadhu tiraahdo dee waraa anigu haddaad ila guursatay dee kulama noolaanaye ama waxa ii samey, baa ka fiican gabadha aamusan oo masayrku dilowday oo dhiban oo mustaqbalkeedii sii baaba'ayo. Marka gabdhaha waxaan kula talin lahaa inaysan aamusin ee sheegtaan waxay qabaan, waayo waxaan maqli jiray waxaad qarsatid way ku qarsadaan. Marka wixiina ha qarsanina, maadaama ood masayrteen oo macnaha dhibkiina ha qarsanina, sheegta waxaad samayn kartiin sameeya si arrintiina loo xaliyo. Haddii aad la aamustaan adinkana wuu idinla aamusayaa, gurigiinana wuu burburayaa. Marka aad baad u mahadsantihiin. Fiidiyowgan please hadaad ka heshay like garee, share garee, asxaabtaada la wadaag.
haddaad nagu cusub tahay please subscribe inoo saar waad mahadsantihiin